بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. maanta waxaan qaadanaynaa sida loo soo dejiyo barnaamijkan Eclipse IDE iyo Java JDK 13 Window 10 sida loogu soo dejiyo. JDK waxaa laga soo gaabiyey Java Development Kit. marka labadan sida loogu soo dejiyo computerkan insha Allah maanta qaadanaynaa. kooda ugu horeysa waxaan soo download garaynaynaa marka hore kan, kadibna markaas waxaan soo download garaynaa Eclipse. waxaa ogaataa labadan way isku xiran yihiin. Java sideedana Java waxyaabo barnaamijyo kala duwana lagu rangarayaa, laakiin aniga kan doorbido kan waaye, laakiin noocyo badan oo kalood ku rangarayn karta Java jira. kanaan marka soo dejinaynaa iyo JDK Java. Okay, marka hore waxaad galaysaa browserka midkii adiga aad jeceshahay. aniga kanaan jeclahay, kana privacygiisa ama securitygiisa xoogaa roon yahay. marka waxaa ku qoraysaa google.com, kadib waxaa qoraysaa Java JDK. ayadaa ku tusinaysa marka midka ugu dambeeyay midku yahay, ilaa mar walbaba sanad walbaba way cusboonaysiisaa. marka Java JDK download oo meesha ku qoraysaa. marka website-kan ugu horeeya waaye midka laga soo dejiyo Java JDK. isagaad kale ku siinaysaa, kadib waxaad tagaysaa qaybta downloadka. markiiba isagaba ku geeyeyba, kanaad kale ku siinaysaa. haddana pagekan markaad tagta, marka meeshan wuxuu kuu sheegayaa kii ugu dambeeyey la sameeyey waa Java SE Development Kit 13. isdaarkii ama nuskhadii ugu dambeysay ay soo saartay Java waa kan. okay, hoos markaad marka sii fiiriso, meeshaanaad tegaysaa qaybtan hoose. hoostan waxaa ku qoran aan aragno, wuxuu ku leeyahay you must accept, waa inaad aqbasho network license agreement, waa inaad aqbasho. marka waxaan leeyahay accept. markaan accept kaas dhaho, kadib hoosaan aadaya. qaybahan oo dhan waa qaybaha JDK-da ay haysay Java. annaga midka aan rabno marka wuxuu yahay, waxay ku xiran tahay hadba operator systemka aad isticmaalayso ama nidaamka aad isticmaalayso ku xiran tahay. annaga waxaan isticmaalaynaa window. marka windowga laba qayb waaye, mid asagoo exe uu yahay extensionkiisa, mid kalena uu zip kusii jiro, zip file uu kusii jiro. marka adiga kanaan, aniga inta badan haddaad rabto kaas hoose waa dooran kartaa, aday ku khusaysaa. kanaan dooranaynaa oo markiiba toos baan usoo download garayn karno. isagaad klik ku siinaysaa. okay, save file. okay, xoogaa waqti buu qaadanaya, laakiin mar walba waxay ku xiran tahay internetka speedkiisa iyo computerkaaga siduu processorkiisa yahay. waxyaabahaas oo dhan ay ku xiran tahay. hadda saan u jeedno meeshaan wax yar baa u haray. haddaad isticmaalayso Firefox, mar walba meeshaanaad ka jeegaran kartaa. meeshaanaad ka jeegaran kartaa intuu marayo. saan u jeedno wax yaraa u haray. okay, saan aragna ugu dhamaaday meeshaan. downloadkii ugu dhameeyey. marka waxaad tegi kartaa meeshaan folderka u eg, meeshaasaad kale ku siinaysaa. haddii kaloo taqaano meeshaas kusoo dejisay markii hore, toosaad u aadaysaa. laakiin annaga meeshaanaan ka gelaynaa. meeshaan ka gal, wuxuu ku siinayaa meesha kusoo download garaysaan. meeshaan aragno wuxuu kusoo download gareeyey user. aniga folder aan samaystay oo folderkayga, kadib wuxuu ku jiraa downloadska. marka meeshaanaad tegaysaa, pagekan dhan iska xir. kanaan marka inta tagnaa waxaan ku siinaynaa double click, laba maran click siinaynaa. wuxuu ku weydiinayaa haddaad u ogolaanaysa appkan inuu device-kaaga change ku sameeyo ama yacni uu ku xirmo. waxaan leeyahay yes. meeshan wuxuu ku leeyahay waxaad kusoo dhawaataa Java SE Development Kit oo qaybtiisa 13aad. marka waxaad leedahay marka next. meeshaan waa meesha uu ku dejinayo folderka, meeshuu ku xirayo waaye program file Java. kadib meeshaasuu kusii dejinayo, hadhowna waa arkeenaa. next dheh, kadib wuxuu sameynayaa soo dejintii. hadda wuxuu ku xirayaa programkiiba, wuxuu ku xirayaa computerka. meeshan wuxuu ku leeyahay Java Development Kit oo versionka 13 ka ahaa
64 bitkana ahaa wuu soo degay. Okay, waxaan xiraynaa kan marka. Goondhan iska xir. Waxaan fiirinaynaa marka barnaamijka hadda aan soo dejinnay inuu ku soo degay kombiyuutarka, inuu si fiican baathka ama meeshii loogu talagalay sidii la rabay uu yahay. Aan fiirinaynaa, waxaad tegaysaa marka waxaad leedahay CMD, meeshaan command prompt kana tegaysaa, click ku sii asaga. Markaad kiciso waxaad ku qortaa Java. Markaad tiraahdo hadda meeshan saa u aragtid wuxuu leeyahay ma yaqaano ilaa ay hadda ma aqoonsanin barnaamijkii aan soo dejinnay ee Java JDK ahaa. Marka seen marka aniga aan u keenaya meeshaan oo u aqoonsana, even haddaad tiraahdo hadda fiiri Java version ma soo saarayo, ma yaqaano. Marka aniga seen marka aan tan u saxaya arrintan hadday qabsato, waxaad ogaataa haddaadan arrintan sixin oo barnaamijkii kale Eclipse soo dejiso, hadhow ma ku samayn kartid, kuma shaqaynayo oo programkii kuma shaqaynayo. Waa inaad meeshan kooda hore saxdo. Marka seen u saxaya aniga, laba dariiqaba waa loo maraa. dariiqo dheer oo aad u marayso oo ah waxaa la yiraahdaa, waxaad tegaysaa marka hore control panelka. Markaad tagto waxaad ka tegaysaa system and security, kadib waxaad tegaysaa systemka, kadib waxaad tegaysaa advanced system setting. markaasaa meesha waxaad ka tegaysaa maxay ahayd environment variable. markaad tan kale ku siiso kadib waxaad tegaysaa path, haddana waxaad dhahaysaa edit. dariiqo kaloo gaaban oo lagu yimaado meeshaan oo iyadana jirta aan rabo inaan ku tusocdo weygan dheerba aadan u maraynin. this PC-gaanaad right kale ku siinaysaa, kadib waxaad tegaysaa property-ga, kadib marka waxaad inta ka tegaysaa advanced system, marka waxaad tegaysaa environment variables, kadib waxaad tegaysaa pathkan, tana waxaad leedahay marka edit. marka aniga waxaan rabaa inta inaan ku soo daro qaybtan, aan ku soo daro Java JDK-dii aan soo dejiyey. waxaan tegayaa this PC-gan folder C-gan tegayaa ama disk C. waxaan kasii tegayaa haddana program files, meeshaasuu kusoo degaa. markaad soo dejinaysa barnaamijka aad ku xiraysay, markaad barnaamijka ku xiraysay kombiyuutarka, meeshaan uu galayo folderkaasuu galaa. folderkaas haddana Java sii raadinaysaa, waa ka, kadib Java JDK, kadib bin. intaan marka iswadato waxaan rabaa in intaan koobiyeeyo intaas. marka meeshaan meelahan oo kale click ku siinaysaa, saanuu kuu noqonaya. marka linkigaana inta koobiyeyso waxaad ku laabanaysaa marka meeshii ahayd edit environment variables. markaas waxaan leeyahay new, tana inta waxaan ku leeyahay control V na waad dhihi kartaa. haddii kalena intaad meeshan tagtid right click ku siida waxaad leedahay paste leedahay. okay, markaas waxaad leedahay okay. mid walba oo furnaa waxaad leedahay okay, kana ku xiga, kana ku sii xiga. hadda markaan tago commandii ama command promptkii CMD oon ku qoro Java, markaas wuu isbedelaya. waa ka hadda programkii waa ii saxan yahay. hadda waan ku shaqayn karaa Java JDK. haddaan iraahdo xataa fiiri Java version, markaas wuu soo baxaya. waa ka ujeedaa Java version 13 way soo midid 2020 date-kii iyo waqtigii ku siinaya. okay, marka hadda waa ii saxan yahay. hadda qaybta kale ku xigta waxaan soo dejinayaa marka hadda qaybtii kale oo ahayd Eclipse IDE. okay, saan u soo dejinayaa iyadana. marka ayadana waxaan tegayaa Google-ka, waxaan ku qorayaa google.com. waxaan leeyahay marka Eclipse download. okay, waa ka marka website-ka meeshaad kasoo download garaynaysa, tanaad kale ku siinaysaa. page-kaanu ku keenaya. marka page-ka isaga waxaan u malaynaa midka ugu dambeeyay ay soo saaraan waa ka 2019 ay soo saareen. marka waxaan leeyahay kombiyuutarada hadda inta badan la isticmaalo, kombiyuutarada intooda badan waa 64 bit. 64 bitkan waa mar walba dejisanaysaa. inta badanna barnaamijyada softwarada cusub oo dhan intooda badan waa 64 bit, haddaanan wax kale iyo si arrimo kaloo khaasa oo dana kale laga lahayn. okay,
marka waad soo download garaynaysaa. marka meeshaas click ku siiso wuxuu ku geynayaa meeshan. tan haddana waxaad click ku sii siinaysaa download. okay, waxaan leeyahay save file. igana waqti badan ma qaato, mar walbana waxay ku xiran tahay barnaamij aad soo dejinayso computerkaaga iyo internetka aad isticmaalayso. okay, waan fiirinaynaa inuu noo dhamaystirmay soo dejintii. way dhamaystirantay saan meeshan ku aragno. okay, folderkan sidii oo kale haddana click ku siinaya, isagii u geynaya. kanaan marka waxaan ku siinayaa double click. waxaan kaloo dhan iska xir. okay, meeshan wuxuu siinayaa marka Eclipse. qaybtan waa qaybta laga soo dejiyo barnaamijyada softwarada ay isticmaasho kambanigan badankood, inta badan meesha laga soo dejiyo. okay, saa ujeeda meeshan Eclipse-ka waxaa loo kala isticmaalaa qaybo badan oo kala duwan. mid waxaa loo isticmaalaa kan hadda anaga rabna oo Java developerska isticmaalaan. kuwa waxaa loo isticmaalaa enterprise-ka website-yada kan lagu programiyo ama lagu barmajeeyo. kuwa waxaa loo isticmaalaa C++. kuwa mid baa loo isticmaalaa. anaga laakiin kaan rabna muxuu yahay, waa kan ugu horeeya. marka adiga waxaad dooranaysaa maadaama aad rabto Java coding inaad qorto, inaad isticmaasho midkaas doorato, midka ugu koreeya. okay, anaga waxaan dooranaynaa marka kan ugu horeeya. kan ugu horeeya click ku sii. marka wuxuu ku siinayaa meesha saa ujeeda hadda Java 1.plus virtual machine kii aan ka hadlaynay markii aan programmingka iyo soo bilaabaynay. waa ka uu la socdaa, labadooda kusoo dejinaya oo isu wato. marka wuxuu ku save garaynayaa program file. kanna folderka uu waxyaabaha barnaamijka Eclipse uu ku save garay. kan waa meesha ku xirayo. kanna waa meesha ku save garaynaya. kan waa bedeli kartaa, meeshaad rabtaad ka dhigan kartaa, laakiin anaga meeshiisaan ku daynaynaa. okay, kuwan marka waa inaadan ka qaadin, laanna mid wuxuu kuu gelinaya shortcut oo sida kuwan oo kaleeto kuugu sameynaya meesha. menugana wuxuu ku sameynayaa, wuu ku xirayaa. marka labadaas haddaad rabto waa ka qaadi kartaa, adig ku taala. marka tan click ku sii install. marka meeshan wuxuu lagu weydiinayaa inaad accept garayso licensiga ama agreementiga. waxaad leedahay accept now. couple minute u qaadanayaa inuu marka dhameeyo. okay, pagekan uu kusoo saaray. pagekan marka isagana sidoo kaleeto waa terms kale. waxaad tiraahdaa accepted, waa licensinadu ka mid yahay. okay, suu installationka u wada ama soo dejinta u wada wuxuu kusoo saaraya windowgan. windowgan marka wuxuu ku leeyahay do you trust this certificate? ma ku kalsoon tahay certificatekan? ma ku kalsoon tahay waxaan? marka yes waa inaad tiraahdo oo select all dhahdo. markaa select all tiraahdo wuxuu jeegaraynaya labadan. kadib waxaad leedahay accept. marka installationkii uu meesha kasii wadaya. waxaan u malaynayaa waa khatawaadkii ama tallaabooyinkii ugu dambeeyey. kadib wuu dhameeyey. markuu dhameeyo waxaad leedahay marka launch ama itlaaq, markaas si uu barnaamijkii uu kuugu soo dego desktopkaaga. okay, saan u jeedno loogadii Eclipse ID 2019 oo kaas. okay, waxaan leeyahay weli launch. okay, marka pagekan waxa waaye waa pageka qaybtan waa meesha ugu horeyso eed arkaysa markaad soo dejiso. wuxuu kuu sheegayaa yani qaarkood wuxuu ku tusinayaa sidii loo isticmaali lahaa oo lagaa barayo. qaar wuxuu muraajaca ku siinayaa configurationka iyo settingkooda haddaad wax ka bedbedelayso. midaana waa haddaad rabto inaad barnaamijka ugu horeeya applicationka ugu horeeya samaysid. create new project markaad rabto inaad samayso all waxaasoo dhan. adig marka waxaad samaysaa, marka waxaad leedahay cancel. meesha marka wuxuu ku geynayaa meeshii ugu horeysay ee barnaamijka lagu qori lahaa.
meeshan wixii ka dambeeyana insha allahu duruusteeni kale oo sidii koodadka loo qoraya aan bilaabaynaa. aad ayaad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.